qodob muhiima ayaan jecelahay inaan la wadaago oo ah ilmaha iyo qaabka ugu wanaagsan ee aad ilkaha ugu nadiifin karto. waxaa jira mararka qaarkood ilmaha waqtiga ay leeyihiin taan leekaraha ama goobta ilkaha caadi ahaan waxaa la weydiiyaa su'aalo aad u fara badan taasoo ay dhakhtaradda ama goobta qofka jooga uu aad u weydiiyo. su'aalahaas waxaa ka mid ah inta goor ee loo cadayo ilmahaasi. ilmuhu markay yaryar yihiinna waxaa muhiima in aad loogu dadaalo cadayga habeenkii iyo subaxii labada goorba. sidoo kale waxaa la weydiiyaa macmacaanka ay isticmaalaan iyo inta goor ay cunaan. sidoo kale sharaabka ay cabbaan wakhtiyada ayaa la weydiiyaa, iyo weliba waalidku inuu caawiyo ilmaha iyo in kaleeto. ilmaha badankoodu waxay sheegaan in markaasi ay iyagu fikradooda ka hadlaan, sheegaanna in waalidkood caawiyaan, qaarkoodna ayba sheegaan in iyagu ay shalafkooda u cadaydaan. markaa waxaa jira arrimo badan oo run ahaantii saameyn ku yeesha ilkaha ilmaha. caadi ahaan ilmaha da'da aadka u yar ma aha inay ilkaha ka hallaabaan. markaa waxaa jira sidoo kale sababo keena arrintan. sonkorta oo kaalin weyn ka qaadata daadashada ilmaha. dadka qaarkood waxay aad u siiyaan ilmaha sonkorta, taasina waxay dhibaato u keenaysaa ilmaha ilkihiisa, inay raad ku yeelato oo ay suus geliso iyo weliba bulumbul. laakiin taas keliya sidan ma yeeli karto ilmaha yar. waxaa laga yaabaa inay kale oo jirto jiro. taasina ay tahay waxaana habboon in baadhitaan lagu sameeyo ilmaha marka ilkaha uu aad uga xanuunaan ama uu soo gaadho waxyaabo kale oo aad ku aragtid. waxaa dhici kara cudurro kale inuu ku jiro. waxaana muhiim ah inaad geysid goobta ugu muhiimsan ee dhakhtarka ee kugu dhow. sidoo kale waxaa fiican marka ilmaha ay cunaan macmacaan isla markiiba ilkaha laga nadiifiyo si aysan ugu hadhin sonkorta ilkaha meelaha ay ka gelayaan oo ah meelo aad u khatara oo hadhow saameyn ku yeelanaya. waayo sababaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay sonkorta, waxaana burburaya ilkaha oo iyagu markaasi soo daadanaya. sidoo kale ilka xanuun ayay qaadayaan sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. marka waalid mar walba waxaad ku dadaashaa inaad ilmaha macmacaanka ka yarayso oo aad hal waqti oo siiso wiiggii hal mar. sidoo kalena aad mar walba habeenkii iyo subaxiina aad u cadaydo oo aad caawiso oo aanad keligood ku sii daynin si ilmahaasi u noqdaan ilmo dhan kasta ka nadiifa. sidoo kale waxay dhici kartaa in dhakhtarka laftigiisu uu dacwad kugu soo oogo oo aad khatar ku sugatid in ilmaha gebi ahaantoodba laga wareejiyo. haddaba waalid mar walba ka fikir waxyaabaha keenaya in ilmahaasi uu gacantaada ka baxo. waa ku mahadsantihiin daawashada iyo wakhtiga qaaligaadii hurteen. dhammaantiinba guulaysta.